kulanti wacan oo wanaagsan asxaabteena ku soo dhawaada xafiiska cusub ee BBC-da ee ah xafiiska ugu weyn ee BBC ka hirgelisay meel ka ah dibadda dalka UK waxaan magacaygu waa Firdowsi Cismaan Xaashi waxaan kamid ahay shaqaalaha BBC waxaan diyaar u ahay inaan tusiyo qaybaha kala duwan ee xafiiska nagan cusub soo raaca qaybahana u joodaan waxay kala yihiin qaybta caafimaadka oo dhinacayga midig ah qaybtan waa qayb gaar u ah dumarka oo barnaamij ah looga hadlo arrimaha dumarka quseeyo dhinacaas kale waa qaybta social baraha bulshada ama digitalka ee BBC Africa dhinacan kale ayaan aadi doonaa soo raaca qaybtan waa qayb kamid ah BBC Africa iyo qayb kamid ah qorsheynta iyo qayb kamid ah maamulka BBC-da dhinaca horteeda waa tusi kartaa asxaabtana daawanaysa qaybtan waa qaybta kale ee BBC-da waa qaybta luqadaha sida Soomaaliga BBC Somali Tikrinya Swahili kurti dhinacan ay ku wada joogan shaqaalahooda kaalina u tusay qaybtan waa qaybta BBC Amharic Afaan Oromo iyo Tikrinya qaybtana waa qaybta BBC Swahili shaqaalahooda meeshan ku sugan ugu dambeynna ku soo dhawaada qaybta BBC Somali halkan ay shaqaalaha BBC-da ka howlgalaan BBC Somali hadana waxaan sii gelinaa mid kamid ah xafiisyada BBC-da shirka lagu galo magaciisa waa u joogdaan Muqdisho waxaana hadda meeshan fadhiya Cabdullaahi Cabdishiiq oo ah taftiraha BBC-da ee laanta afka Soomaaliga Cabdullaahi soo agta aad ayaad u mahadsantahay Firdowsa xafiiskii hore haddii aad kan u barbar dhigtid kii hore wuxuu ahaa hal qol oo weyn oo ilaa 40 ilaa 50 qof qaadaya dhinacyada studio ayaa kaga yeelay marka si loo fiiriyo qalabkii yeelay iyo aad ayuu ciriir u ahaa qofka marka martida xitaa aan keenna waxaana la dhihi jiray ma halkan aad gantiin laakiin kan haddii aad aragtid dadka uu qaadaya waa ilaa 300 dad ku dhawaad ah dhinac dhan ayaan leenahay qaybta Soomaaliga qolalka shirarka waad arkaysaa mid kamid ah Muqdisho ayaa loogu magac daray xitaa sawirada aan ku dhagsanay haddii aad arkaysid waa sawirro ka tarjamaya dhaqanka Soomaalida iyo waxyaabaha Soomaalida gaarka u ah geela ku jiro masaajida ku jira waxyaabihii lagu dagaalami jiray ku jiro iyo gabdha Soomaaliyeed oo dhaqan ka tarjamaya marka waa qol markii loo fiiriyo laanta af Soomaaliga iyo xafiiskana cusub waxaad leedahay aad ay isu qaadanayaan oo waa wax maaragtay leedahay waa la isu sameeyay dhan waxay astaan u yihiin sida ay BBC-da bariga Afrika asxaabtana daawanaysa markaana waxaan aadaynaa qaybo kale oo kamid ah xafiiskan weyn ee BBC-da فضل الصوم فعلا marka hada kan hadartana qaybaha kale ee xafiiskan waxa idin tusinaya Xudayfa aniga magacaygu waa Xudayfa aadan waxaan u shaqeeyaa BBC Africa qaybta ganacsiga mar walba ku soo biiray halkan 3 bilood baan ka shaqeynayaa intaan halkan imaan waxaan u shaqeyn jiray TV-da Kenya mid kamid ah laakiin waxa ila soo socda aan tuso qaybtan cusub ee hadda la hagaajiyay kulligeen 18 baan ahay oo dhinaca qaybta ganacsiga ka shaqeyso kulligeen mar dhawaan ku soo biirnay BBC-da waa department cusub Saudidan all these reporters waxa way the finest business reporters ganacsiga ugu fiican Africa marka waa qayb cusub aan hadda bilawnay waxyaalaha programmadan hagaajinayna waxaan u hagaajinaynaa in laga sii daayo TV-yada Africa si ay u arkaan dadka Afrikaanka wararka ku saabsan ganacsiga ee meel walba ka imaanaya Nigeria Somalia South Africa Kenya Egypt Malawi 55 African countries ka imaanaya macnaha Soomaaliga zaid ma fiicna laakiin hadda saa u jeedaan dadka waxay u shaqeynayaan maanta programka ugu hore oo maalinta ka soo bixi doona qaybtan baan bilaaweynaa marka dadkan saa u jeedaan hadda waxay diyaarinayaan programka waa very busy as you can see waad u jeedaan dad nooc walba ah waaye waxa ku jira Jason oo wadanka Kenya u suun gareyn jiray ka qayb qaatay maxaa la yiraahdaa ciyaaraha wadankan ninkan Larry Madowo ayaa ah marka ninka u sareeyo meesha qaybta ganacsiga ninka u sareeyo marka Larry you can say hi BBC Somali and listen to this Somali hi so basically waad u jeedaan marka dadku mashquulsan yihiin waxay hagaajinayaan programkii koowaad oo ku soo bixi lahaa af Ingiriiska oo maalmo bana ka soo geli doono
TV kala duwan TV Uganda laga soo sideen doona NTV Uganda Zambia laga soo sideen doona Nigeria laga soo sideen doona wadamo badan oo Afrikaan hadana waxaan u programmadan aan diyaarinayno waan ka soo sideen doona insha Allah laakiin saan ni sheegay mar labaad dadkan waxa waaye reporteradii ugu fiicnaa qaybta ganacsiga Afrika kulligeen waxaan ka nimaanay qaybo kala duwan iyo TV kala duwan waana wada cusubnahay 3 bilood ba halka ka shaqeynayna marka 18 baan nahay saani sheegay mar labaad marka dhinaca ganacsiga inta anaga u weyn dhinaca xafiiskan Nairobi anaga u weyn 18 baan nahay 18 of us so marka ila soo socdo waxa dhinaca kale aan geey ay qaybta ganacsiga kadib marka dhinaca kale jirto waa qayb cusub ayadana BBC hada ay hagaajiyeen waxay fiirinayaan arrimaha ku saabsan wararka oo nasaxnayn mise kuwa fake news ay yiraahdaan oo hadda in waayahan batay oo hadana ka baxayaan social media sida Facebook iyo Twitter ay ku shaqo leeyihiin waxaan soo saaraan programyo ku shaqo leh wararka qaybahooda kala duwan iyo say xaqiijintoodii wararka qaar kood ba hadda waayaan sad aragteen arrimo badan oo maaragtay aanan sax ahayn ayaa meelo badan laga soo siidaa marka dadkan teamkana u jeedaan Richard Kagoy iyo Newton waa ugu sarreey kooxda oo ayagana mar dhow la keenay meesha 3 bilood bay ka shaqeynayaan sidii qaybta ganacsiga aan sheegay Newton, if you want to say hi, BBC Somali. Seta hi. We usually say Seta. So, kuwan kalena waa ay kamid yihiin programka diyaarinayaan mar dhow wararkoodana waxay ka soo bixi doonaan African TV stations aan hore ugu sheegay ilan wararkan dhan aan diyaarinayno iyo showyadan aan diyaarinayno waxa laga soo siideyn doonaa maxaa la yiraahdaa TV-yadan ee Afrikaanka ila soo socda hadda qaybtan kale aan soo fiirinay u dambaysa meesha fadhiyaan maxaa la yiraahdaa ciidamada farsamada qaarkood meesha qaybta fadhiyaan laakiin saad u jeedaan hadda sawiraantan quruxda badan waxay tusinayaan dad kala duwan oo Afrikaana waana sawiraan BBC shoot gareysay oo zaad u qurux badan sad as you can see marka if you can walk with me dhinaca kale qaybta dadkii u dambeeyaan soo tusaya qaybtan hoose هذا يا أما سنتي حديفة وحنا تصير قيبة كمية حفيز كعصب حتى صدقنا أصحابنا الدعوة سعادة يا أمهات سنتهين أنت سيكسو قبل إن برنامج كي كنت سيني قيبها كمية حفيز كعصب BBC ده كير جلسة مقالة نيروبي